dadka Soomaali baa la hadlayaa mani maqashaan wallahi oo billahi oo talay aragti baa naga dhaxaysaa ummadda Oromada oo ku jiro reer Hargeysa haday wax yar gaarsiisaan aragti baa naga dhaxaysaa kusoo dhawaada daawadayaal awow media muuqaaladan maalmihii ugu dambeeyay waxaad ku arkaysteen baraha bulshada waa qowmiyadda Oromada ee ku sugan Somaliland oo koox dhalinyaro ah oo abaabulan ay beegsanayaan qaabka ay u beegsanayaan ma sax ba mase waa qalad sida oo aragtida commentiga ayaa nagula wadaagi doontaa qowmiyadda Oromada waxay u soo tahriibaan dalka Soomaaliya xilliyadii hore ama sanadihii hore waxa ay sameey jireen inay ka sii gudbaan oo ay ka sii tahriibaan laakiin hadda si toos ah ay ugu soo tahriibaan Soomaaliya Oromadu oo way ka shaqeystaan halka dhalinyarada Soomaaliyeedna ay ka tahriibaan dalka oo ay nolol u raadsadaan dalal kale marka hore bal aan daawano muuqaaladan oo ah dhalinyaro reer Somaliland ah oo abaabulan oo beegsanaya qowmiyadda Oromada هذا الكريه لكن انا كسر نور رمضان وكذا وين نعله صح هذا الكريه ما هي انتين هذول صراحه افرت قفا خوص انا غير سومالنا دمانتي مكا هاوغو كين هذه سوق صراحه دمانتي مسوقه إثيوبيا ما حد خبرت أول مثلا. يا. العين حاجة لطيفة العين حاجة لطيفة. إثيوبيا مدرة. إثيوبيا لطيفة. ويادو لطيفة. وإذا محب خبرت إثيوبيا. وإذا بيت كوس. وإذا ريت كاي. ريت بايش تاع. ومحبتها بش خسوي دي. نعلا والد كفياني. أي ويدي وأنت يا. إما كرال لون نقدي. أي. كبار هذا بطل شيء غنيا. وأنت هاشم الله هاي قولي يا وصل. هرجيس تبع. ها عاونا حفظة عاونا كبح عاونا حفظة. أيوة يا جماعة. دي تابع والله يبرين. سرعي ما يستوي ما يدقيزو ايه شريع إمك أنا تايب ما جبت وارمان تاير والله بلا من كودي دقيسو وري والله بالله حتى إمك سو دقنيكم مسين حافظها نيويورك سو سو غارينا كودي وانا مالنا مالك سنين تالقى بلا بيا نيويورك كودي labada isha amasta isha meesha nafteeda geynaysa adigu soo xafraha ma gashaan soo xafraha ma gashaan meesha nafteeda geynaysa meesha nafteeda geynaysa adigu jirtaa yaalka qabanaysa wallahi billahi toos baan ladin wasaya baan ma maqlaysaa madaxaas laga goynaya nacala hooyada ku yaal iska tagarada imkan ka urursa baan ku Soomaaliland kuwa kala saaxiibadiina saagu sheeg soco hooyada dib laga haydo dhinaca kale Oromada waxa ay ka dareen celiyeen beegsiga la beegsanayo qowmiyadooda Oromada iyagoo qaarkood ku hanjabay in ay aarso doonaan dhibaatooyinka loo geysto dadka Soomaali baa la hadlayaa mani maqashaan wallahi oo billahi oo talay aragti baa naga dhaxaysaa ummadda Oromada oo ku jiro reer Hargeysa haday wax yar gaarsiisaan aragti baa naga dhaxaysaa annagana halkaasaan ka bilaabin ma ogtiin inaan adduunka ugu badan annagu dadkeeni amaan siiya annagana waa naga helaysaan ma difaanteen dadkeeni amaan siiya haddii dadkeeni amaan sii weedaan aragti ayaa naga dhaxaysa ma faanteen أوروميا ما أنت صوبة ما أنت أوف سومالي أوف يا بري أوف كوب أوف لب أوف صد أوف أفر أوف شن أوف ليح أوف تطب أوف سومالي أوف hargeysaana laga raafo meel kasta hana laga raafo meel kasta hana la geeyo laakiin Itoobiya waa joogtaa anagu hargeysa waan deganay waan hadda idinku kuwa hargeysa aad dhameysaan Itoobiya waa la wada joogaa 5 qof ama 6 qof hadda dishaana 10 qof inuu idin ka dhimanayo garta xabada kaliya in Oromani cabtiina waan garanayna laakiin haddaayna cabtiina hadda dhaxisaan Soomaaliya soo ka Oromada hal la dilo annagana waxaan dhahaynaa Oromay soo ka Soomaalida hal la dilo waayo in Oromiyana la degantiin miyaad loobdeen Absaawina la degantiin Dirdhabaana la degantiin Harar baa degantiin Jijkaana la degantiin ya waxa soo dhan magaalada Oromiya idinkaana la degan aan anjeeradiina iska cuntaan baa idin fiicnaan lahaa
taqaanin dagaalkaasoo kale hadduu soo noqdo idinku baa dhibaato soo mari doona wallaahi arrinta ugu dambe waad arki doontaan haddii dhibaatooyinkan ay sii socdaan oo qaabkan loo beegsado oromada maxaa ka dhalan kara oo dhibaato ah sida u aragtid bal commentiga nagula wadaag ma sax baa in qaabkan loo beegsado oromada